bismillaahi raxmaani raxiim waxaan u wanaagsan daawada leedna ahaantiinba meel walba aad joogtaan kuna soo dhowaada warkii Soomaali News 724 halkaan kaga akhrin doona anigoo Ismaaciil Cali Ajaay qodobada aad warkeena ku daawan doontaan waxaa ka mid ah Mareykanka oo kulan gaar ah la yeeshay saddex ka mid ah madaxda maamul goboleedyada haddaba saddexdaasi maamul goboleed oo Mareykanka oo kulanka la yeeshay waa kuwee warkeena aad ku daawan doontaan iyo waxyaabaha looga hadlay kulankaasi taliyaha ciidamada xoogga dalka odawaa oo ballanqaad u sameeyay kulan uu la qaatay madaxweyne lafta gareen ballanqaadkaasi wuxuu ahaa warkeena aad ku daawan doontaan waxaad kale warkeena aad ku daawan doontaan maxay ka wada hadleen Axmed Qorqor iyo weliba Axmed Madoobe kulan ay ku yeesheen magaalada Muqdisho baaraadka kale caalamkaad warkeena ku daawan doontaan waxaa ka mid ah dawladda Japan oo yeelatay ra'iisul wasaare cusub qodobadaas iyo qodobo kale ayaad warkeena aad ku daawan doontaan asxaabay u diyaar garooba daawade haddii aad ku cusub tahay channelkan soo booqashadaadii koowaadna ay tahay subscribe saar gambaleelka taabo siina share gareys si ay kuu soo gaaraan wararka iyo macluumaadka aan soo gelino channelkan warkii oo dhan وهاجك داود لمن كان عندي سقطت قطب كوجو وركنا نكو قاعد نيجي دونا حبنا كسعودي دولة مريكان كأي كل ما جار ساعده لصودا في gudaha magaalada caasimadda ah ee Muqdisho kula qaatay hogaamiyaasha Puntland Jubbaland iyo Koonfur Galbeed Soomaaliya kulamada oo ka dhacay xarunta Xalane gaar ahaan dhismaha safaaradda Mareykanka ayaa waxaa ka qayb galay safiirka Mareykanka u qaabilsan Soomaaliya Danjire Donald Yamamoto taliyaha howlgallada gaarka ee ciidamada Mareykanka ee Africom General Anderson iyo weliba taliye ku-xigeenka taliska ciidamada Mareykanka ee Africom Ambassador Young intooda badan waxaa kulamada uu Mareykanka la qaatay Siciid Dani Axmed Madoobe iyo Cabdicasiis Lafta Gareen diiradda lagu saaray ammaanka iyo dagaalka al-shabaab sidoo kale waxaa kulamada lagu soo qaaday iskaashi xoog leh oo dhex mara taliska ciidamada Mareykanka ee qaaradda Afrika iyo saddexda dawlad goboleed si meel looga soo wada jeesto dagaalka adag ee lagula jiro dagaalyahanada kooxda al-shabaab qoraal ka soo baxay safaaradda Mareykanka ee Muqdisho ayaa sidoo kale lagu sheegay in muhiimadda kulankaasi ay ahaayeen adkeynta xiriirka dhinacyadaasi si loo laba jibaaro howlgallada ka dhanka ah al-shabaab ee ka socda koonfurta iyo bartamaha dalka Mareykanka ayaa ka mid ah dalalka sida weyn u taageero dawladda federaalka ah wuxuuna howlgallo dhanka cirka ah ka fuliyaa gudaha Soomaaliya taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed Odawaa Yuusuf Raagi ayaa kulan gaar ah magaalada Muqdisho kula qaatay hoyga uu ka degan yahay madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen taliye Odawaa ayaa wacad ku maray in ay dib u furi doonaan wadooyinka ay go'doomiyeen maleeshiyaadka al-shabaab kadib markii madaxweyne Lafta Gareen kala hadlay sidii ciidanka xoogga dalku uga qayb qaadan lahaayeen dib u furista wadooyinkaasi Odawaa ayaa sheegay in ciidanka xoogga dalka ay bilaabi doonaan howlgallo ay dib ugu furayaan wadooyinkaasi go'doonka ugu jira al-shabaab kuwaasi oo muhiim u ah isku xirka degmooyinka Koonfur Galbeed madaxweyne Lafta Gareen ayaa taliyaha ku bogaadiyay shaqada uu qaranka u hayo isagoona hoosta ka xariiqay dadaalada uu muddooyinkii dambe u geliyay howlgallada ciidanka xoogga dalka sida ay ogaatay warbaahinta Soomaali News 724 taliye Odawaa ayaa amar degdeg ah duldhigay ciidamada xoogga dalka qaybta deegaanada maamulka Koonfur Galbeed kadib kulanka uu la qaatay madaxweyne Lafta Gareen Odawaa ayaa ciidamada faray inay qaadaan howlgallo ay dib ugu furayaan wadooyinkaasi oo muddooyinkii dambe go'doon ugu jiray dagaalyahano ka tirsan maleeshiyaadka al-shabaab madaxweynaha dawlad goboleedka Galmudug Mudane Cabdi Kaariye Qorqor ayaa xalay hoyga uu ka degan yahay magaalada Muqdisho ku qaabilay dhigiisa Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe kulan gaar ah oo labada hogaamiye dhex maray ayaa waxaa diiradda lagu saaray wada tashiyada socda iyo xaaladda siyaasadeed ee dalka Qorqor iyo Axmed Madoobe ayaa sidoo kale si gaar ah u falanqeeyay doorka ay ka qaadan karaan in xal midaysan laga gaaro doorashada soo socota ee 2020 sidoo kale labada mas'uul ayaa isku soo qaaday arrimo ku saabsan sidii loo horumarin lahaa wada shaqaynta iyo iskaashiga ka dhaxeeya Galmudug iyo Jubbaland madaxweynayaasha Galmudug iyo Jubbaland ayaa magaalada Muqdisho u jooga ka qaybgalka shirka wada tashiga ee madaxda dawladda dhexe iyo kuwa dawlad goboleedyada maalmihii u dambeeyay waxaa gudaha caasimadda ka dhacayay kulamo gaar ah oo u dhaxeeyay madaxda dawlad goboleedyada iyo saamilayda kale ee siyaasadeed waxaana dhammaantood looga hadlayay xaaladda dalka gaar ahaan arrimaha doorashooyinka
iminkana akhbaaraadka dibadda baarlamaanka dalka Jabaan ayaa maanta codka kalsoonida siiyey ra'iisul wasaaraha ay dhowaan soo magacaabeen xisbiga talada haya ee dalka Jabaan ee LDP si uu u bedelo ra'iisul wasaarihii hore ee dalkaasi Yoshihide Suga oo noqday ra'iisul wasaaraha cusub ee dalka Jabaan ayaa helay 314 cod oo ka dhigan tirada guud ee xildhibaanada 465 xildhibaan Mr. Suga ayaa ah 71 sano jira wuxuuna sii hin doonaa xilka ra'iisul wasaarenimo ee dalkaasi ilaa bisha September ee sanadka soo aadan xilligaas oo dalku geli doono guud ahaan doorasho rasmi ah warkii aad ka daawanayseen Somali News 724 daawadayaal waa naga intaasi wararka iyo muuqaalada aan channelkan soo gelino ku soo gaaro subscribe dheh gambaleelka taabo siina share garaysi asxaabtaada kale u gaarto wararka iyo muuqaalada aan soo gelino channelkan